الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. walaalayaal soo dhawaada insha allah waxaa ku dhex jirnaa programkeeni qiimaha badnaa nooga barateen saacadahan oo kale hawadayna ka dhegaysataan sheekeena qaaliga sheekh Abu Talha oo inoo soo jeedin jiray. haddana waxaan soo dhaweynayaa sheekha oo inooga horumarin doono kelimadihii qiimaha badnaa oo bulshada ay ka faa'iideysan jireen. فليتفضل مشكورا ومأجورا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، أحبكم في الله. الله درادي بان إذين شعلها سبحانه وتعالى. الله وحان ويديسانا يا إنو نغوك المية جنات كيس. الله سبحانه وتعالى وحان ويديسانا يا عرش الرحمن هوس كيسا إنو نغوك المية سبحانه جل وعلا. برنامج كعاوة وبرنامج كيني لما قعب حي إلى التالي وانكولت لنا تلما قادا كلمة أن شعلها إن أنكار مريو عاوة كلمة واناه وأن نفتيد كوانين أيوه وأن إهل كيغا كوانين أيوه وأن عرور تيدا كوانين أيوه وأن لبضا إسقبت كوانين أيوه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نفتيذيتين وحان حسوسنا يا جيري، وحان حسوسنا يا إن الدنيا لغرها رمضانه، waxaan idin xusuusin dahayaa in qabri la geli doono. waxaan naftayda iyo tiinaba xusuusinayaa inaan rabbi hor istaagi doono subxaanahu wa tacaala. waxaan naftayda iyo tiinaba xusuusin doonaa laba dariiq iyo laba wado oo keli ah in loo kala bixi doono aakharo sida adduunyadaba loogu kala baxay. qaala tacaala fariiqun fi ljanna وفريق في السعير. قال الجنة لغو راحيي إيا قال النار لغو عقابي. نعوذ بالله تبارك وتعالى. وحان نفتيذيتين وكوانين إياه إن المالين تا عليس كبدان هول كبدان آن أديار قرونه. وحان يرين إنا مرنك وحان كتغينا غفلة إيا هلمانك waxaan badinaynaa salaada iyo soonka, waxaan ixsaan iyo wanaag u samaynaynaa waalid iyo qaraabo, waxaan ilaalinaynaa deris, waxaan ilaalinaya labada isqabta goorta ay geerida xusuusan yihiin ayagoo qaaqaawanna rabbi ay hor istaagi doonaan subxaanahu jalla wacala. الله سبحانه وتعالى وحوليها النف ما جرته إلا جيري بين دمين إيسا تلو جيري كدب حاجات كدام بين دونتا ما إله باكارا لنقم دونا أو عليين تلقو قدري دونا مثل أسفل السافلين. نعوذ بالله تبارك وتعالى. أبو جهل إيا أبو لهب إيا فرعون miyaad isku meel ka soo bixi doontaan mise nabiyullaahi muxammadin sala allahu calayhi wasalama iyo ambiyadii iyo saalixiintii iyo muttaqiintii iyo shuhadadii iyo mukhlisiintii iyo sidiiqiintii miyaa isku meel laydinka soo saari doonaa? labadaas su'aalood jawaabtoodu waxay u laabanaysaa tawfiiqda alla kadib
hadba adduunyada intaad shaqaysato oo aad alle u dhowaato subxaanahu wa tacaala aanu ku dadaalla camalka saalixa ah ee wanaagsan waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat allah subxaanahu wa tacaala dadka acmaasha war wanaagsan la yimaada wuxuu u ballan qaaday jannaat kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula jannadaas ayuu alla subxaanahu wa tacaala makaanu degitaan iyo meel lagu marti qaado oo alla ka yeelay subxaanahu wa tacaala indheheennaanu laabanaynaa caloosheennaanu xaaraamta ka ilaalinaynaa sidaan soo sheegay carabkeenna ayaan xifdiyaynaa kitaabka qur'aanka abaa manhaj iyo dastuur noo noqonaya sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam baa dariiq aan qaadna noo noqonaysa qalbigeenna waxaan ka buuxinaynaa jacaylka allah iyo jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalama jacaylka diinta iyo jacaylka mu'miniinta mukhlisiinta ah innamaa waliyukum allahu warasuuluh waaladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun dadka tukada ee iimaanka laga helay ayaan walaheenna siinaynaa waxaan ka beri noqonaynaa cid kastooo shaytaan iibsaday oo uu suuqa geystay allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu su'aasha qabriga uu noo dhib yareeyo lamaanaha waxaan xusuusinayaa waxaad ila xusuusataan su'aasha qabriga dhexdiisa laysku weydiin doono mas-uuliyaddeenni ma ka soo baxnay mise kama aynaan soo bixin arrin adag baana sugaysa ayuha alaxibba qof walbana maalin uu raran doono lama yaqaano geeridu ma taqaano kanaa qabiil laandheero ah ka dhashay kanaa qurux badan kanaa muruqyo waaweyn kan xoogaa waxbaa ka kala dhimane bal xoogaa intay wax iskugu hagaagayaan bal u kaadi kanaa faqiira kanaa ra'iisa kanaa mar'uusa waaladii nafsu muxammadin biyadihi calayhi asalaatu wassalaam malaku mowtku waxaa ma yaqaan faidaa jaa'a ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun hadday saacaddu dhammaato waxna looguma darayo waxna looguma siyaadinayo shay walba ilaahay wa kaana amru llahi qadaran maqduura shay walbaba qorsho iyo qadar ayuu ku socdaa oo allah subxaanahu wa tacaala uu qorsheeyey qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim xataa haddaad guryihiina jiiftaan munaafiqiinta waxaa ku dacwoonaysay waxa weeyaan geeridu walow kuntum fii buruujin mushayada xataa buuro la adkeeyey godadka ka hooseeya haddii aanu gallo walaalayaal geerida iyo malaku mowtku waa uu noo imaanayaa laa ilaaha ila allah inna lilmowti lasakara alla geeridu xanuun badana ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalama markay naftu ka baxaysay yacni geeridii iyo sakaraatulmowtkii xanuunkiisii markuu nabigu adkaysan waayu yidhi biyaha la ii keeno markaasuu isku shubuu yidhi laa ilaaha ila allah inna lilmowti lasakaraat hadduu rasuulullahi sidaa yidhi sala allahu calayhi wasalama walaalayaal maxaad u malaynaysaan low kaanat iddunyaa cinda allahi hadday alle agtiisa adduunyadu low kaanat iddunyaa taduumu liahliha haddii qofun adduunyada uu ku noolaan lahaa nebi moxamed baa ku noolaan lahaa sala allahu calayhi wasalam qaala rabu alciza jala wacala wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum alkhaaliduun adiga kaa horraysa ma aanan u yeelin waaritaan ee haddii aad dhimato gaaladu aduu haddaad dhimato ayagu ma waari doonaan nebi moxamed baa adduunyadan ka rartay sala allahu calayhi wasalam asagoo zaadka iyo sahayda uu wataay ay tahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala risaaladiisi gutay maalintii xajatulwadaac
waa kii ku lahaa saxaabada oo 100 kun iyo ka badana war ma idin gaarsiiyey wixii la ii soo dhiibay ee ilaahay ii soo diray ma idin gaarsiiyey ayagana waxay lahaayeen nacam waadna gaarsiisay nashhadu annaka qad ballagta الrisaala wa addayta الamaana wa nasaxta lihadihi اlummah allah subxaanahu wa tacaala adduunyadan buu ka rartay nabigeena calayhi الsalaatu wassalaam asagoon waxba kaga tegin adduunyada allahu akbar xaqiiqadaasi waa xaqiiqana sugaysa waxaa kaloo ka tegey adduunyada dadkii intoodii badnayd adduunyada way ka rarteen walaalayaal xaqiiqadaa maan dareensannahay soo maynan aqriin rabbi irjicuunii qolo dhahaysa rabbiyow dib noo celi haddaannu camalka wanaagsan ama camal wanaagsan la imaanaynaa kelimadaa ujeeddadeedu waxaa weeye inay qalbigeenna ay u rarto adduunyo ay ka soo rarto oy markaa aakhiro u rarto oo bal aan xaqiiqadaas aan xusuusanno si aannu ugu diyaar garowno waxaynana gaadhsiinaysaa waxyaabo badan inaannu ka tagno markaannu xaqiiqadaa dareenno fa as'alu allaha jalla wacalaa allah waxaan weydiisanayaa subxaanah inuu naga dhigo kuwa xusuusta geerida kuna dhaqmo oo ku camalfala camalfalkeedana la imaada wixii geeri ka dambeeyana u shaqaysta laguna martiqaado jannaadka alle uu yidhi waman ya'tihi mu'minan qad camila الصaalixaat faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa jannaat qofka rabbi u yimaada isagoo camal saalixa wata allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay darajaad sarsare ayaannu gaadhsiinaynaa jannaad buu leeyahay ilaahay nagama dhigo kuwuu rabbi yidhi waman ya'tihi mujrima qofka rabbi u yimaada subxaanahu wa tacaala asagoo mujrima waxaa weeyaan jazihiisu inuu naar yahay ayuu rabbulciza sheegay subxaanahu jalla wacalaa walaalayaal marka maalinta aan u diyaar garowno atardaa an takuuna maca qowmin lahum zaadun wa anta bigayri zaadi ma jeceshahay inaad qolo la socoto adduunyada aad safar tihiin ayaguna ay sahay wataan aduguna aaday sahay wadanin watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa sahay qaata sahay la qaata midda ugu fiican waa taqwa allah calayka bitaqwa allahi in kunta gaafila ya'tiika biاlarzaaqi min xaysu laa tadri fakayfa takhaafu alfaqra wallahu raaziqa faqad razaqa الطayra wاlxuuta fi اlbaxri waman danna ana الrizqa ya'tii biquwة ma akala alcusfuru shayئa maca الnisri tazuulu can الdunya fainaka laa tadri إida janna calayka allaylu hal taciishu ilى alfajri wakam min صaxiixin maata min gayri cilah wakam min saqiimin caasha xiina min addahri badanaa qof hadda caafimaad qabay oo baabuur kala gooyey wadnuhu istaagay badanaa mid in badan mariib ahaa oo kadibna in badan adduunyada ku noolaaday ayuha alaxibatu fi اllaah caawa kelimadayda aan ku talagalay inaan ka hormariyo ila tali waan kula talina tala ma qaadan taladeennu caawa waa inaan xusuusanno geerida iyo wixii ka dambeeya ku soo dhowaada walaalaha mar walba noo haga ama noo daadihiya barnaamijkeennan ila tali waan kula talina tala ma qaadan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan oga baryaa eheladooda iyo reerahooda iyo carruurahooda ilaahay inuu barakadaas ka imaanaysa dacwada iyo juhdiga inuu u geliyo ku soo dhowaada baaraka allahu fiikum بارك الله فيكم شيخنا فاضل إلهي ميزانك حسناتك كوسارو إلهي وحكبرينا إلهي إنه نقدق كوي كلمة قيمها بدن دخن قليو إلهي سبحانه وتعالى هنقدق كو أمانة يوم القيامة كتابك وذكا عن تميدك تلقسين دونو إلهي هنقدق دمان